maanta waa maalin weyn sida hore la inoogu sheegay maalin weyn weeye aadna ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalintan aynu weyneenno maalintani waa sanadkiiba 1 December in maxay ahayd la isugu yimaado xaflad loo qabto la weyneeyo macnaheedu waxa weeye in maalintaasi maalin dadka ku weyn adduunka ku weyn inay tahay oo qof waliba meeshuu joogo ama cidii la nooli ay ku dhiirato oo timaado oo la daaweeyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda back iyo commissionka guud ahaanba weynaynta ay maanta weyneeyeen oo maxay tahay xafladda tan sida quruxda badan ay u soo abaabuleen oo inoogu marti qaadeen waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Bashiir taliye Bashiir oo ku dhiiraday waxaan u mahadcelinayaa iyana wadaadkii maxay tahay inoo furay oo quraanka inoo akhriyay sidii uu macneeyay oo waliba nin dhalinyaro ahaa waxaan dhiirinayaa cudurka Ilaahay baa keena ma aha si xunun kuma yimaado waa iska iman karaa waxaan maanta muhiimaddu ay tahay community-ga inuu maanta ka jawaab celintiisa inay maanta halku dhagad u noqdo maalinta community-gu ay ka jawaab celiyaan reer Puntland runtii maalmahaas oo kale waa maalmahoodii way jawaabi jireen waxa muhiimaddu ay tahay in la iska ilaaliyo faquuqa maanta waxa weyn aynu maanta tixgelinaa waxa weeye faquuqa in la faquuqo cudurka Ilaahay keenay oo cudurada ka mid ah Soomaalidu for example waxa aynu doonaa in la fahansiiyo inuu cudur simple iska yahay iska iman kara dabadna si simple ah loo daweyn karo waxa jiri jirtay bariga hore in phobia laga qabay Soomaalidu ka qabtay cudurka la yiraahdo TB bari dambe magaalooyinka aynu soo galay waxa la ogaaday in TB-gu duraygu inuu ka xun yahay TB-ga oo sida maxay tahay daaweyntiisa uu fudud yahay TB-gu waxaan garanayaa iyadoo la fuuqo qofkii loo jiray qaaxu qabaado dabadna maxay tahay aan cidi u soo dhawaan looma baahna maanta inaynu cudurka AIDS-ka HIV-gaas inaynu maanta sidaas oo kale ula isticmaalo sida aad la socotaan waa tii hadda history-ga la inooga sheekeynayay daawada qofku hadduu dhiirado oo yimaado oo isa sheego oo daawada qaato dee halkaas ugu dambaysa sida Bashiir oo kale noqonaya waxbuu dhalayaa dadkiisa maxay tahay xaasaskiisii iyo qofku ama ninkiisii rag iyo dumar dadka ma qaadi doono wax caadi uu noqon doona waxa aynu maanta ka hortageynaa oo muhiimadda ugu weyn ay tahay in faquuqa sida uu wasiirka cadaaladdu inoo sheegay wasiirka xogeenka cadaaladdu iyo hay'adduba waxaanu ka soo saarinaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka faquuqana la siin karo cidii ku talaabsata oo ah in uu yahay sharci darro dembi baynu qaadan karaa waayo adduunka haddaad marto shuruuc baa jirta waxa la yiraahdo maxay tahay Mareykanka oo kale reer galbeedka haddaad eegto haddii aad qof in uu leeyahay aad ku shoogto waa la suu gareeyaa waxba ka soo qaada qof buuran fat bear haddaad ku tiraahdo you are fat waa xafiis buu tagayaa waa la suu gareynayaa qofkaas dambi qof cawaran hebel cawar inana waa ugu yeedhnaa marka qofka kan
guriga laga kirayn waayey ama maxay tahay laga cararayo ama in la soo dhaweeyo ayuu inaga mudan yahay waliba waxaan qabaa anigu maanta reer Puntland runtii waa u gurmadaan waxyaabaha noocaas kale in loo gurmado oo lala xiriiro hay'adda back oo iyaga information ka haya cidii qabta in loo gurmado oo bulshadu ay maxay tahay u istaagto oo dadka noocaas ah oo hadda maxay tahay qofkii inoo sheegay kuma waxa laga yaabaa qof qaba in caruurtiisii ama isagii aanu daawadii qaadan karin baahi awgeed marka arrimahaas oo kale waxbaynu ka qaban jiray reer Puntland inay wax ka qabato waxa aan kala halka kan ballan qaadaynaa in siyaasadii in la fulinayo oo ay hadda gacanta lagu hayo siyaasadda AIDS-ka haddii alla yiri waa ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa dawladda xagga dawladda in hawlaha waaweyn ee muhiimadda ay dawladdu siinayso inay ka mid tahay way ka mid noqonaysaa AIDS-kaasi waayo bulshadii baynu nabadgelinaynaa ama wixii la nool baynu daryeelaynaa haddii la yidhi marka arrinkaas way u istaagaysaa waxa jira wasaaradda cadaaladdu waxa aan soo gaaray nin askari ah oo hay'ad waliba maxay tahay wuxuu qaban karta ka shaqayn jiray oo cudurkaasi ku dhacay oo la eriyay xuquuqdiisa aan la siin agaasimaha xuquuqul insaanka iyo wasaaradda cadaaladda iyo cidii allaale ku shaqalay waxaan jeclahay dabcan hay'adda ayaa rekoorka haysaan u maleynaya ama reportka in hawsha iyada qofkaas oo kale aynu u wada istaagno oo tusno in ay maxay tahay bulshadoo dhan dawlad iyo shacab in qofkaas oo kale ay garab u tahay dadka reer Puntland uu garab isagu u yahay qofkaas oo kale aad iyo aad baan maxay tahay arrinka isaga waxaan aad iyo aad u ammaanayaa taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u leeyahay oo aan wada shaqayn jiray oo nin muslima ah nin caadi ah nin wanaagsan ah nin wadani ah oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay de Ilaahay u keenay oo sabab Ilaahay uga dhigay oo aanay dadka waxyaabaha xun ee loo qaado dabcan aanu u qaadin oo ku dhiiraday oo maxay tahay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada leh ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiiranaantaas uu sameeyay iyo mas'uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo cidii kale maxay tahay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kan aan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirigelin hal darajo dalacsiinay Bashiir ninka laga bilaabo hadda waa gaashaanle gaftan buu xidhnaa hal darajaanu ugu daray ila soo dhaweeya aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu